بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aad baan idiin salaamayaa walaalaha meel walbood joogtaan iyo si walba waad noo dhegaysanaysaan caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa cashir yar oo ah luqadda Englishka haddaba haddii aad doonayso inaad ka faa'iidaysato afka Englishka amaba uu kugu yahay mid adag waxaan xoog ama diiradda saari doonaa inaad halkan kala socotid isla mar ahaantaana aan idiin soo gudbiyo haddaba caawa waxaan idin siin doonaa cashir yar oo kooban oo loogu talagalay in qofka aad isku cusub tihiin marka ugu horeyso aad la hadlayso haddaba sida idiin muuqato shaashadda cashirkan wuu idiin socon doonaa waxayna ku xirnaan doontaa maskax furideeda hase yeeshee haddii ay tahay markii ugu horeysay aad daawanayso channelkan Arax Media fadlan subscribe dheh lagtana nagu caawi si dad fara badan oo walaalaha ay u gaarto videoga sida korka muuqato waxaa ku qoran conversationka waa sheeko dhex marto dad walbo amaba laba qof ama sida markaasi ay tahay waa sheeko laba wadaag ah haddaba sidaad u joodid waxaa ku qoran ereyga hore hello oo macnihiisu ay tahay salaan lagu salaamo qofka aadan markaasi garanaynin hello waxaad kaloo ku salaami kartaa qof aad garanaysid laakiin waa si informal ah waxaa lagu salaamaa qofka aadan aqoonin marka qofka wuxuu ku celinayaa hello kadib markii aad tiraahdid hello sida ku muuqato waxaad oranaysaa how are you ereyga you-ga mar walba waxaad isku daysaa inaad muujisid how are you marka you're not supposed to say how you should say how are you so the person amaba qofka waa inuu dhaho I am fine waxaa kaloo dhihi kartaa I am doing great waxaad kalooga jawaabi kartaa I am doing good haddana si alternative waxaad ugu jawaabi kartaa great so saa u joodid waxaa kaloo oran kartaa not bad americanka waxay dhahaan no bad laakiin anaga englishka britishka aan baranayno waa not bad so if you want to change a little bit you can say not bad waxaa kaloo oran kartaa very good so that d the last d should not be pronounced you say very good dida ugu dambeyso uma baahnid inaad muujiso haddaad good tiraahdid waxaa la rabaa inaad ereyga ku dhawaaqdid hase yeeshee lama muujiyo waxaad leedahay very good markaas way qurxanaanaysaa luuqadda haddana waxaad leedahay how are you doing xaaladaada ka waran qofku markaas wuxuu ku jawaabayaa sida idinku ku muuqato I'm doing good thank you anigu waan fiicanahay waadna mahadsan tahay and you I'm good thanks so markaan qaybtan waxay gaartay isbarasho maadaama qofkii markii ugu horeysay aad isbarateen aad is aragteen waa inaad magacii u sheegtid oo aad iswadaarsataan my name tusaaloo kale hadda aniga Ismail ali dhahaa my name is Ismail nice to meet you my name is Farah nice to meet you too so waa kusoo celinayaa cashirkii intii ugu dambeysay saad u joogtid conversation waa sheeko dhex marto laba qof oo haddii waxay ahaan kartaa laba qof oo istaqaano ama midaan is aqoon hase yeeshee cashirkeena maanta wuxuu fooda saarayay laba qof oo aan isgaranaynin hello how are you I'm fine I'm doing good I am doing good I'm doing great you can also say great
You can alternatively say not bad, not bad. You can also say very good, very good, very good. So we came again by saying, how are you doing? I am doing good, thank you. Anigu waan fiicanahay, waadna mahadsantahay. And you? I'm good, thanks. I'm good, thanks. So insha allah casharka dambana waxaan isku dayi doonaa inaad ka faa'iidaan, laakiin waxaan idinkula dardaarmayaa inaad subscribe channelkaas tirahdid. Intii aad ka fahantayna aad isku dayid inaad ku celiso si cashirka labaadna uu kugu fudaado inaad la qabsato. So inshallah we are going to meet tomorrow, and I'm saying hi, goodbye, or alternatively see you again. Bye bye.